halkan waa raadiyo fiirsamo waxaad runtii aad ku xiiso badnaa ee talada dhibiga. Si fiican wax u fiiri xuruufta taleefankaaga gacanta. Haddii aad si fiican u arki weyso waxaad qabtaa cudurkan. Dr. George Eket oo ah dhakhtar ku takhasusay caafimaadka indhaha ayaa caddeeyay in qoraalka aadka u yaryar ee muraayadda taleefankaaga gacanta ay tahay fursad uu qofku ku ogaan karo caafimaadkiisa indhihiisa, gaar ahaan ku hubin karo inay indhihiisu qabaan xaalad caafimaad darro ah aadka indhaha fuula oo sida la ogyahay aragga dila. Sidaa oo kale xuruufta yaryar ee muraayadda taleefanka gacanta oo aad loo arki waayaa waa calaamad muujin karta in khalkhal ku jiro indhaha. Dr. George Eket oo xubin ka ah dalladda dhakhaatiirta indhaha ee dalka Jarmalka ayaa sidaa oo kale caddeeyay in qofka oo akhriyi kari waaya qoraalada yaryar ee shaashaddu ay tahay digniin fiican oo uu ku garan karo inuu isbeddel ku yimi awoodda araggiisa. Markasta uu dareemo inuu araggiisa xarfahaasi sii xumaanayana waxa uu ku ogaan karaa xawaaraha uu ku socdo hoos u dhaca araggiisu. Dhakhtarku waxa uu sheegay in qaladka ay dadku inta badan sameeyaan uu yahay in marka ay isku arkaan xaaladdan aanay si fiican u arkayn shaashadda taleefankooda gacanta, markiiba ay isku qanciyaan in ay muraayadda aragga u baahan yihiin ama haddii ay haystaan ay tahay inay beddelaan. Laakiin runtu tahay in xaaladdan dawadeedu aanay intaasi oo kaliya ahayn, waayo waa calaamad muujinaysa inuu jiro xanuun run ah oo ku dhacay indhaha, araggiisuna uu halis yahay inuu dhinto. Sidaa awgeed, qof kasta oo xaaladdan isku arka waa inuu sida ugu dhaqsaha badan dhakhtar ula tashado si ay u suurto gasho inta uu xanuunka indhihiisa hayaa cusub yahay in wax laga qabto. Fariintii talada dhibiga waa naga intaa maantana.